waxaan jecelahay inaan si gooni ugu mahadnaqo ardayda ka soo qayb gashay kulankan maanta maadaama uu dheer yahay moogtahay kulankiina rasmiga ahaa iyo cashirka aad dhiganayseen iyo wixii waajibka ahaa waxay tusay qofku inuu ka soo qayb galay danayn gooni inuu leeyahay iyo inuu rabitaan ay sheegaysaa oo waxaad ku qasban tihiin oo taqaana markis qofku ku waayay aad ka maqnaado maaha si gaarna waxaan ugu mahadnaqayaa kulliyadda iyo macallimiinta iyo maktabadda jaamacadda iyo maxaan ku dhahay Ustaad Cabdinaasir oo maxaan ku dhahay si gooniya igu marti qaaday inaan maanta kulankan aan wadaagno waanan ku faraxsanahay shakhsiyan inaan isaga iyo idinkaba aan idin la joogo su'aasha ugu muhiimsan ama su'aasha ciwaankeenu ka bilaabmaya waxay tahay maxaan wax u akhrinaa iyo sideen wax u akhrinaa oo laba su'aalood oo is saaran laakiin waxa ka horeysa maadaama jaamacad joogno arday jaamacadeedna la joogno akhrisku waxa weeye xarfaha iyo si isku raacaan iyo dhawaqa iyo in la akhriyo moogta marka yani su'aalaha qofka sida wax loo akhriyaa baataajada sida loo akhriyaa wax loo akhriyaa hadduu ku dhaho waa kaa garhayaa moogta yani war inagu cusub maaha ardayga marka la geeyo fasalka koobaad ama xataa guriga wax lagu baro looga bilaabo baataaja baa looga bilaabaa alif ba ta tha baa la baraa a b c d la baraa ilmaha xataa marka fiidiyoyada yar ee youtube-ka loo daarayo xarfaha looga bilaabaa macnaha waa mas'alo laga yaabo 30 sano ama 20 sano ka hor inuu la soo dhameystiray ay u eg tahay oo ah qofku sidoo wax u akhriyi lahaa xarfaha sidoo intuu isku geegeeyo uu erey uga dhigi lahaa ereyga markuu isku geegeeyana uu uga dhigi lahaa word oo waxa meesha ku sawiran uu macna uga soo saari lahaa intaas horta waxbarashadu ay ka bilaabantay marka mas'alo nagu cusub ma laakiin waxa ka sii muhiimsan ereyadii iyo weerihii akhriskoodii baranay si isku raacaan iyo sida ay xarfu macnaha u sameeyaan baranay laakiin waxa malaayiinta iyo balaayinta kitaab iyo buug ee qoran ku jira sidee ayaan u akhrinaa waa taasi maxaan ku raahdaa su'aasha muhiimka waana su'aalahan rabo inaan mawduuceena aan ku furfurano ama khariirad uga dhigano aan raacno inta aynu mawduucan ka sheekaysanayna galabta su'aasha ugu horeysa waxa weeyaan haddii aynu wax akhriyayno maxaan ku raahdaa sababta aan wax u akhriyayno inaan isweydiino mid kale waxa weeyaan sida aan u xulanayno waxaan akhriyayno oo maxaan ku raahdaa maxaan akhrinaa iyo si aan u xulanayno waxaan akhriyayno su'aasha saddexaad waxa weeyaan farsamada la xiriirta sidee ayaan wax u akhrinaa saddexdaas su'aalood ayaa maxaan ku raahdaa mawduuceena hagi doona intaana laakiin su'aalahaasi iyo jawaabahooga ama fikradaha aan rabo inaan ka dhaho aanan u gelin waxaan rabaa inaan kor maro ama fikrad ka dhiibto maadaama mujtamac wax bartaynu nahay akhriskeenu soo kordhayo si guud Soomaalida inaan aragti guud ka dhiibto xaaladda akhriskeenu hadda ku sugan yahay ustaadku markii dhawaad hadda uu hadlayo wuxuuna dhahay moogtahay waxa jirta مثلا دارق سودان oo kale ku soo xiganay tirakoobyo la xiriira maxaan ku raay inta dadku wax akhriyaan maxaan ku raay Yurub Mareykan caalamka Carabta inaga tirakoob ma jiro moogtahay oo wixii iska awood yar ma sheegi karno moogtahay nambaro laakiin wala isbarbar dhiga adduunka dalka intaas oo buuga ka soo baxday dalka intaas oo buuga afka intaas oo buuga loo turjumay dalka intaas oo buug baa la akhriyaa celcelisahan qofka Ingiriiska qofka Mareykan qofka Faransiiska bishiin taas akhriyaa ama sanadkii intaas oo akhriyaa xisaabo noocaas la soo saaraa laakiin su'aal isweydiin leh ayaa jirta akhriskeena marka laga reebo buugaagta dibadda laga keeno yani buugaagta badanka dibadda laga keeno laakiin waxa kale oo jira oo marka tirakoobyada iyo fikradaha la sameeyo ku biirin ama qofka toos ugu soo dhicin mesela masaajidana kutuba laga akhriyaa cashara laga akhriyaa kutuba laga raacdaa waa akhristaa laftirkeedu moogta lagama yaabo marka akhriska laga warramayo in qofku soo dhacdo laakiin kutubta la raacdo iyo culimada iyo ardayda cilmiga waxay akhriyaan waxa jiro waxyaabo maxaan ku raahdaa loo akhriyo shaqo darteed qofku shaqada uu hayo report buu sameeyaa report buu daabaca report soo saara uu akhriyo waxyaabo badan oo noocaas jira marka xaaladaas oo guud ayaan rabaa horta inaan isla qiimeeyno aniga waxaan isleeyahay fikrad ahaan afar nooc ayuu saddex nooc haddaan isku soo koobo ayuu noqonayaa akhriskaas وانا halkaan uga gudbi doono
khariiradii hadda adii sheegay akhriska koobaad waa akhris cashir raac aan u bixin karno akademiga oo ah ardaygu waxa uu bartay inuu akhriyo wuxuu bartaa political science wax ma taqaana political science la xiriira inuu akhriyo wuxuu bartaa journalism wax journalism la xiriira inuu akhriyo buugiisa iyo mararka qaar textbooka buug akhris guud oo mawduuca la xiriira ka sii fog inuu akhriyo kaas waa mid weey waa qayb ka mid ah akhriska مثلا كايمك تصالح سوق هذا إنه كله كتاب الرعدة كتاب كائن آخريه ومدواي آخرس كلا لبعضنا حب حكرنا آخرس فرسمه أو ربودية ده يشغلها هي خبرة آخرس كذا هذا اللي ساقف صوماليا ولا جاي عبين هاي ده محفيز دولة ده محفيز شركة ده وشقيه أو فيل كاو كشقيه خبير كوا حق معلومات يدات يكهاي akhriska saddexaadna waa akhriska caanka akhriska moodada ayuu bixin karnaa yani maxaa hadda socda maalinba buuka soo cusub soo baxa buugta ugu iibka badan leh New York bestseller waa taqaanaa ma filaya buugta lagu soo duldajiyo New York Times bestseller la dhaha marka magacaas uu ka sii helayaa maxaan ku raahdaa caanimo kale laga yaabo mesela celebrities ko kale ama dadka caanka sanadku markuu dhamaado inuu soo report gareeyo mesela buugta ugu macnaha badneed sanadka akhriyay buugta ugu saameynta badneed sanadka akhriyay إنه واحد لقى أبا عن بيل جيتس كلا عن كوا موقت بوقتنا بيل جيتس كقولة تلنا أنا دخله ربادين نوع عسى إن شوكتا أو صباحان آخر كان نوع على حريرة واحد سوق يلا واحد عصب واحد صباحي واحد قف عاني كتلنا يا واحد آخرينا آخر كان موضوع أي أب بحكرنا صدق هذا نوع آخر محا كذا شبان أيام مكا السويديننا آخر كوا ده حنسلاي هاي خصوصا صار قف قويها هذا جاهلة مساسكو قبطا قف aqoonyahana mutacalima laakiin jaahila isma qabanayso waqti wala weeriyo iska soo horjeeda qofka ma mutacallim marka lagu raado inuu jaahilnimadii ka baxay lagu sheegaa waqti qofka waa jaahil marka lagu raado inuu wax u barana lagu sheegaa laakiin labadaas ma isku ladmaan ana waxa islay akhriska ashirka raacsani labadaas isku ladhaan sidoo isku ladhaa qofka wuxuu ka dhigaa qof hal mawduuc nolosha ka yaqaan hal arin nolosha كيقان أرنكا واحد لقيها بقى إنه تفاصيل أذفر بدن كيقان أو متقان هادو ما أنت ميكروفون كقبشده صدح ساعات أفر ساعات 5 ساعات كاجا شاكين كرو وحكاجا بري كرو وحكاجا فانسين كرو موضوع عاس لكن محو صوب حياة نلاش كلا أردن وحكان نقارن يقفكو جاي تصالة ديسينيا تصالة من مرة بماها موقتها نحر كماها يعني تصالة عشان ضد ليان أيام مركا قاعد على موقت تصالة هان waxaan ka ka warrameynay in kitaab raacashadu ay akhris badan leedahay mesela qofka sheekha ama dalib cilmiga ama ardayga diinta barta waxa laga yaabaa inuu aqoonta barto dabeedna kitaabkii rasmiga ahaa uu sheekhu akhriyay iyo maxaan ku raraa 2-3-400 kitaab oo kale mesela makaarada tigtaa maktabada kutubta diinta lagu iibiyo mawduuc kasta waxaad ka soo helay boqolaal nooc boqolaal ciwaan ka soo helay qofka marka waxa laga yaabaa inuu aqoonta barta ama xadiiska barta ama fiqiga barto deetana tafaasiil farabadan iyo doodo farabadan iyo maxaan ku fikrad walba fikrada ka soo horjeeday daliilkeeda iyo cadeynteeda iyo beeninteeda iyo shubahaadka wixii oo dhan yaqaano nooca saddexaad akhriska waxa ku sheegnay akhriska moodada la socda asagoo ka balaaran yahay labada kale waxa laga yaabaa kan mawduuc qof ku takhasus ku koobnaa kana mawduuc qof ka shaqeeyo oo ku koobnaa kan laakiin waxa laga yaabaa 100 mawduuciye buug mataqaana novel oo sheekay inuu qofku akhriyo buug gabay inuu akhriyo buug kale oo taariikh inuu akhriyo buug kale oo xusuus qor inuu akhriyo maalin walba buug baa cusub moogta buug baa moodada buuga xayisiis la helaa buuga bandhig loo sameeyna buuga moogta qof celebrity ku talina qof moogta laakiin akhriska noocaas wacyi noocyo abuura wuxuu abuurayaa wacyi filersan yani qofku waxna waa yaqaan waxna ma yaqaan waxna waa ogyahay waxna ma oga mowqif ma qaadan karo talo ama fikrad ma difaaci karo fikradna ma gadi karo moogta laano meel la awoodiisa ma saarin wuxuu cagsi ku yahay qofkii takhasuskiisa awoodda saaraya heer wax kasto kale adduunka ka jira iloobo waa cagsi ku yahay marka qof wax walba wax ka yaqaan waxna aan si fiican u aqoonin kaasana loo badan yahay oo badanahay jiilashina dambe laano maadaama مثلا jaamacadaheena iskuuladeena iyo waxyaabahaas yani akhris nidaamsan aan lahayn ardayga مثلا markuu wax baranayo aan maaddo kastaba intaas oo shay inuu ka akhriyo si uu yani u fiirso dugsiga hoose dhexe sare markaan dhiganayno maadooyin farabadan aan baan dhiganaa moogta 10 maado 8 maado markaad ku darto marka dugsi quraanka ku darto
aad ku darto private kaad meel kale ka dhigato aad ku darto macalinka guriga inta isku geyso waxa laga yaabaa qofku wax fara badan in la barin la rabo macnaheedu waxa weeye asaasiyaadka dhan inaad barato asalka dhan yani juqraafiyaad baranaysaa inaad wax ka barato juqraafiga physics wax ka barato xisaabta waa inaad taqaano luqadda carabiga luqadda ingiriiska luqadda soomaaliga yani waxyaabo badan wax laga baray hadhow laakiin marka jaamacad timaado maadad qaadana fail baad qaadana kuwii kale oo dhan macnaheedu ma inaad ka tagtay laakiin macnaheedu waxa weeye wixii aad soo barato dhan isku dhisaysaa dhinac u qaadanay moogta haddaanad basicska hoose lahayn asaaska hoose haddaanad lahayn jaamacadda waa isla dhib banaysa waxaad doonta baro yani medicine baro journalism baro international relation baro xisaabtii calculusta dugsiga sare ka daba imanayaan moogta meesha doonta kaaga daba timaado haddaanad basiska lahayn mar walba waa alifkii albaqra ku dhigaya mahmaado ay sheegaysa marka waxa uga socdaa yani haddaan dugsigeeni iyo waxbarashadeeni siinaynin jaaniskaasi qofku wax akhris nidaamsan oo waxbarashadiisa la socda maxaan ku rahdaa aanu helaynin sidoo kalena wax akhriska suuqa yaalana oo filqsan yahay oo maalinba buuga soo baxay tahay wacyi waxa abuurmaayo filqsan oo qofku mawduucna una ka maqnin mawduucna aanu ka dharagsanin fikradna aanu ka maqnin fikradna aanu ka dharagsanin kaasina wuxuu u sahlan yahay inuu mawjaduhu ay qaadaan marka waxa u noqonaynaa maxaan ku rahdaa khariidini waa noqonaynaa oo saddex su'aalood ahayd maxaa wax u akhrinaa iyo seen wax u akhrinaa iyo seen u xulanaa waxaan akhriyayno inta marka waxa ku horeynaynaa xulashada intayna xulashada ku horeyn waxa isweydiinaynaa markaad xulanayso aday kugu xidhantay markaad labis gadanayso aday kugu xidhantay labiskaad jaamacadda ku imanayso iyo labiskaad aroos ku tagayso iyo labiskaad jimcadda ku tagayso isku mid maaha dooq baad samaynaysaa dooqaasi adu ka soo gaca marka intaana dooran labiskaad gadanayso waxaad garanaysaa waxaad u isticmaalaysid moogta waa isqeexaysaa waxaad leedahay waxaan rabaa labis aan aroos ku tago waxaan rabaa labis aan jimcadda iyo salaadaha iyo munaasabadaha ku tago waxaan rabaa labis aan magaalada ku joogo labis aan kubadda ku ciyaaro labis aan noocaas oo kale waad fahamtay ma malaha fikradda marka intaynaan dooqa u gudbin horta waa in inagu isqeexno hadda fasalaan joognaa jaamacadaan joognaa arday baan nahay marka koowaadba waxaan nahay arday iyo mutacalim qeexitaankeena koowaad يعني aniga assume gareynaya waa kaas waan isbedeli kartaa ka labaadna waxa weeyaan muqdisho aan joognaa marka Soomaali baan nahay labada fikradood baan rabaa inaan isku qaadno oo aan ka duulno markaan dooqeena akhris aynu sameynayno markaad arday mutacallim oo Soomaaliya tahay maxaa u baahan tahay inaad akhrido ama maxay tahay inaad akhrido ama maxaa ku yaala oo ay tahay inaad akhrido su'aashaan u socday ee maanta dhan aan u soo mataqaanaa yani u soo araaranayo waa su'aashaas maadaama oo wixii dooq yahay baahidaaduna xadidayso maxaan ku idhaahdaa waa inaan su'aashaasi ku bees karayno akhriskeena macnaha waxa ka wadaa adiga Soomaaliga ee ardayga mutacallimka la mid ma tihid مثلا ninka khalijiyaanka maxaan ku idhaahdaa kula midka la mid ma tihid qofka Sacuudiga la mid qofka Jabaaniiska la mid ma tihid inaad isku akhris noqotaan ma fi nihaayana in isku wacyi noqotaan ma laano kala wadci baatiin kala duruufaatiin marka halka aan u socdo ee nuxurkaygu uu yahay marka waxaan ku horeynaa fikrada hore oo soo cabirnay oo ahayd yani tacliinta ku horumaraysa laakiin waxa isla qarsanahay inaan baahideena ha qabtireynin aqooneed hadda ku jirna aan dalka wax ku bartay macalinku dalka wax ku bartay dad dibadda wax ku soo bartay laakiin fi nihaayana mar walba markaas ku geegeyso waxaad hubtaa adigoo xataa baranaya adoo ka shaqeynaya adoo baraayo inuu tacliinteenu maanta duruufaha dalkeena darteed aanayna ha qabtirayn taas marka maxay keensanaysaa marka ugu horeysa akhriskeenu waa inuu noqdo marka waxay noo hagaayeen isbarano inaan inagu isbarano tusaaleed siinaya sooyaalkeena maxaa ka naqaanaa taariikhda dugsiga ku soo dhiganay taariikhda ummadeena maxaa ka baranay waa yarta waxaa ka baranay dagaalkii koowaad adduunka aniga tusaalahaygaada siinaa si aanan idin qiyaasin aan taariikhda markaa dhiganayo dugsiga dagaalkii koowaad adduunka dagaalkii labaad adduunka dagaalkii qaboobaa okay Asian history marka loo tago taariikhda qadiimka maxaan ku dhahaa Mesopotamia waa fahmaysan Soomaa يعني wax aad u guud weeyaa general oo aad u ballaaran yani ceeb ma ahna waxa barato laakiin inta in lag baad xiriir ku leeyahay maogta tusaale kale dhaqanka Soomaaliga maxaa ka naqaana Soomaali baan nahay marka laga yaabo qof ajnabi ah oo warmaysid inaad wax uga sheegtid dhaqanka Soomaaliga laakiin wax systematic kama naqaano wax systematic kama naqaano laano daraasadaha lagu sameeyo ma badna waxa laga qorayna manhajkeenu kuma jiro marka dhaqankii
afkii baa la mid ah moogtay waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah dadka yani ummadaha afkooda ugu jaahilsan baa kamid nahay dadka qaarkood waxa laga yaabaa marka halkan ka socay yani markaad isbaranaan uga jeeda fikradda tusaalaha yani meesha koowaad ee akhriskeenu ay tahay inuu noo jeeyo waa inuu adiga ku baro iska baro dhaqankaaga ku baro oo maxaan ku dhahaa taariikhdaada ku baro sooyaalkaaga ku baro wadankaaga ku baro oo afkaaga ku baro oo ku baro maxaan ku dhahdaa xiriirada ummadaha kale la leedahay oo ku baro maxaan ku dhahaa meesha adduunka kaga taalo oo waayaha ku nool lahay ku baro mesela maanta waxaan dhigaa arday international relation ee la jooga ama political science maanta Soomaaliya waxa ka socda dood la xiriirda nidaamka dastuurku yeelanayo ma dalka madaxweynaha ku xigeen baa laga dhigaa mise waxa laga dhigaa ra'iisul wasaare iyo parliamentarian laga dhigaa mise mixerka haduu yahay ayaa laga dhigaa doodaas socod Soomaa doodaas maanta ma dhalan ilaa 60 soo daba jiidanaysa maalinba meel bay taagnid waxbarashadeena wax ma kaga jiraan yani political science kan barano siyaasadda dalkeena wax laga qoray ma ku jira adiga akhriskaaga ma ku jira moogta si aad hadhow dooda uga qayb noqoto wax ku darsanaysid aanad uga noqon marti uga noqon hadafka koobaad ee maxaan ku dhahdaa wax akhriskeena waa inuu noqdo inuu iska baro dhinacyadaas oo dhan iska baro hadafka labaad waa inuu noqdo inuu adduun arigeena toosiyo moogta adduun arigeena waa maxay anaga midalan muslimiin nahay adduunka iyo aakhiro iyo bari iyo taariikhda si u naqaana moogta cadaaladda maxaa u naqaana xaqa maxaa u naqaana maxaan u naqaanaa ii sheeg qaabka saxan ay tahay in loo noolaado waxaas oo dhan waxba qaabaynaya Soomaa odhan maayo moogtahay barashada diintu waa liidataa laakiin waxa odhanaa inaguma filna hadday nagu filan tahay duruufta kuma jirneen moogta marka waa dadajinaya si aan waqtiga ugu badan waxa kale oo la mid ah adduunka barano Soomaalidu waa dadka ugu inda taagan adduunka ee war kasta ka warhaay moogta waa ku faanaa masalada waa ka sheekeynaa meel walba laakiin waxa kale oo nahay dadka ugu badan ee adduunka ugu jaahilsan cilaaqada adduunka la leenahay afkaarta adduunka ka haysano yani waxa isku mid ah qofka BBC-da dhageysta ma taqaana hooyo ama aabe da'da gurigiisa iska jooga inay mas'uuliyad saarneen iyo qofka madaxda waxba isma dhaamaan marka adduunka fikradan ka haysan la xiriir qofka go'aanka qaadanaya qofka siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya matalaya qofka maxaan ku raahdaa macalinka aqoon-yahanka ee idaacadda inoo fadhiya ama TV-ga ee warka maxaan ku raahdaa analyze gareynaya ee xogta ka qaadanayno iyo waa isku mid hadaan waxba yani waa isku dhowyin hadaan waxba isku mid ahayn qofka caadiga Soomaaliga warka guud baan naqaanaa Mareykan iyo Ruushka col baan naqaanaa maxaan ku Iiraan iyo Sacuudiga col baan naqaanaa inaga iyo Ethiopiankuna col baan naqaanaa moogta waxa kala tafaasiil laakiin nidaamka adduunku sida uu dhisan yahay sida uu shaqeeyo midalan tijaaradu sida uu shaqeysa midalan Ruushka iyo Mareykan hadda haysto soo dagaal socdo dagaalkaas waa dagaal dhaqaale fikradda guud marka laga yimaado maxaa ka naqaanaa qofka Soomaaliga international relation ka baranaya waa inuu aad wax uga barto masaladaas marka haddaanu manhajkaaga ku saacideynin haddaanu mutacalimiinta dalkaaga ku saacideynin waa akhriskaaga ku saacido adduunka waa inaan barano waxa kale oo maadaama waxyaabaha tacliinta la xiriiraan ayaa ku sii socda akhriskeenu waa sidoo kale waa inuu baro xirfadaha garaadka la xiriira xirfadaha gacanta la xiriira waa mas'ale kale moogta يعني فرصة يقان وبرن كرتها تجابة كبرن كرتها يا ذو حتى أو هذا نسكولو قلين قف كشقة وود بقلي كرتها لكن حرفضاء قرات كل حين آخر ساكو براي سلوا فكرة طلع سلوا دسو محن كورا هذا ديبيتس كسلوا لو قابيو لو تشجع منطقة وحشودن فرسموين كاس حرفضها لا حريرة محن كورا هذا قرات كل حين آخر ساك أياكو برايو dhankaas waxa weeyaan oo nidaamkeena waxbarasho la xidhnaa akhriskeena ku kablo ay ahayd dhanka kale adduunyada ama dalal badan sina adduunyada isku wada qaadin siyaasaddu ideolojiyada ka dusha ama afkaari ka dusha yani bidixii midig waa maqalnaa niman ma yar adag niman dhexdhexaad maqalnaa center left waxa maqalnaa moogta yani ciwaano waaweyn maqalnaa waxaasi afkaar badan ay dhabar ku hayaan oo kala safashaa moogta inaga Soomaaliya soo kala safanaa siyaasadda si reeraa kala safanaa moogta maxay Soomaalidu xasay u kala qaybsantay inay haysato ceeb ma moogta madoo dhaw haystaan moogta laakiin maxay isku haysanaa maxaa maanta intaasina isku group ka dhigaya intaana
isku group ka dhigaya intaana isku group ka dhigaya basically waxa weeyaan in la isku abtirsado macnaha waxa weeyaan qowl kale ma jiro qofka siyaasigii wax kale oo taageero ku raadiyo oo yiraahdo in waxa iyo waxaas taageero ku raba inaga ma jirto hadday xataa dadku afkaar qabaan siyaasiyiinta ama axsaabta ama maxay wata taxta afkaar qabaan afkaartoodaas iyo mawqifkooda siyaasadda kuma dhisaan waxa laga yaabaa in laba nin haddii afkaar ahaan loo eego cagsi isku noqon lahaa ay xulafo siyaasiyeed yihiin oo meel wada joogaan moogta laano dood siyaasadeed ama dood fikri laguma dhisin siyaasadeena marka waxa uga socdaa maadaama halkaasi ay naga maxaan ku raahdaa naga qaldan tahay ama naga dhiman tahay qodobka kale ee akhriskeena ajendaha u noqonaya waxa weeyaan inuu afkaarta dawladnimada la xiriira iyo danta guud waa in akhriska ku kabto waxa dawladnimada iyo qaybaheega iyo qaababkeega iyo maxaan ku raahdaa doorka ay dawladdu bulshada ku leedahay iyo bulshada si ay u maamulayso iyo si ay ula falgelayso afkaar ka jirto dhaqaalaha afkaar ka jirto si ay u dhisay afkaar ka jirto moogta adduunka waxa soo dhaw laga niqaashaa buugtana ay ka buuxaan marka akhriskaagu haddaad danaynayso siyaasadda waa in halkaa ku kabo مثلا dalalka axsaabta waaweyn leh axsaabtu waxay leeyihiin iyo ururada iyo dhaqdhaqaaqyadu waxay leeyihiin meel dadka lagu rabeeyo ideolojiyad ahaan ay leeyihiin moogta oo qofka uu doodahaasi ku sii galo isagoo dhalinyara isagoo bilowa oo maskaxdiisa halkaasi ku nidaamiyo deetana isagoo yaqaan wuxuu ku doodayo wuxuu ka doodayo iyo wuxuu rabo wuxuu diidayo iyo halku ka safanayo siyaasadda galo inaga laakiin waxaan isleeyahay akhriska inuu buuxin kara gaabka ay siyaasaddu banaysay okay markii dhawadan istaariifinayna waxa isku taariifin halka ugu basiidsan oo ah arday ama mutacallim Soomaaliya Soomaa qofku isaga taariifintiisa yaqaana oo isii qorqori karo inta ka badan iska sheegi kara laakiin qodobkan soo socdan waxa ku dul dhisaya inaad Soomaali tahay akhriskaaga muxuu ajenda u sameeynaa waxa aan naqaanaa Soomaalida dooda haybta la xiriirda identity-ga la xiriirda waa dood soo jireena Soomaalida ma Afrikaanba ma Carabba waxaas ma rabo inaan gala doodaasi laakiin pointiga aan u socdaa waxa weeyaan doodaasi maxaan ku dhahay haybta la xiriirda ee filqsani kaanise ku siinaa ama fursad weey laftarkeeda مثلا Soomaalidu sina ugama go'ona Afrika waa juqraafi moogta Afrika dhaqanna maaha aniga aragtida haybna maaha waa juqraafi Afriki South Africa iyo Ethiopia iyo Soomaalida iyo Masaari iyo Moroccan iyo Angolese isku keentaa moogta nin cad iyo nin madow maxaan ku nin dheer iyo nin moogta isku keentaa waa juqraafi moogta marka inaga ayaa la inaga rabaa inaan maxaan ku dhahay halka asaan Afrika ugu jirnaa qeexno yani maaha in la inoo qeexsan Afrika ugu jirno waana sheeko markeeda goonida laga sheekaysan karo laakiin halka u socda waxa weeyaan Afrika maxaa ka naqaanaa Afrikadu waa fog tahay waa weyn tahay waa ballaaran tahay deriskeena maxaa ka naqaanaa Ethiopia maxaa ka naqaanaa Kenya maxaa ka naqaanaa Eritrea maxaa ka naqaanaa kuwa nagu soo dhadhow Soomaa akhriskaagu waa in ajendahaas oo kala sixi karo moogtay yani masalada haybta la xiriirda inuu waxaad danaynayso juqraafigaaga maxaan ku dhahay Afrika oo ku saleysan doodaha ka jira qaabka loo safan yahay taariikhdeeda siyaasadeeda dhaqaalaheega moogtay wax kastoo nolosha ka shaqeyso ayaa ku sii hagi doona moogtay dad dhaqaalayahan tahay dhaqaalaha daneynay haddaad siyaasi tahayna siyaasadda daneynay dad مثلا journalismka qofka ka fargareynaa ama ka waramaya dagaalada geeska Afrika ka socda waa inuu imsadal yaqaano taariikhdooda iyo afafkooda iyo dhaqamadooda iyo afkaartooda iyo dhaqaaqyada iyo siyaasadda iyo dagaaladooda sokeeye nidaamyadooda siyaasiga wax walba ugu yaraan 7 dal waay moogtay u fiirso geeska Afrika ku naalo inaga aad moogtay uga sheekayna xaaladeena dad Soomaaliya isdilay oo dagaal sokeeye waqti dheer ku qaatay oo deganaansho la'aan ku raaganay moogtay laakiin boqolkii sano ugu dambeeyay ama 150 sano ugu dambeeyay geeska Afrika meel nasatay ma jirto tusaale siinaya dawladda Soomaaliya waxa dhacday 89kii waxaan 89kii Suudaan Afgambiya ka dhacay dagaal sokeeya kontonkii ka dilaacay oo 2012 keenay dal Suudaan la dhasho 2010 keenay dal Suudaan la dhasho Ethiopia 1880kii 1880kii ama 70kii dagaal sokeeyo oo Amxaarada iyo Tigreega u dhaxeeyay soo dhamaadeen
waxay keentay inay soo balaariso Afriisteetankii heer qabsato oo dhulka Soomaalida dhulka Oromada meelo badan ku faafto min maalinka ilaa maanta dhowr iyo 10 dagaal sokeeye ayaa Itoobiya ka dhacay imisa ka naqaana hadaan ka badnaynba meel fog ka tagin Eritrea konton iyo dhowrka Itoobiya lagu wareejiyay konton iyo dhowrka dagaal baa ka bilaabmay ilaa 90 ay ka dhameysanaysay ay xorriyada ka qaadanaysay Eritrea markay xorriyada qaatay Suudaan la dagaashay Itoobiya la dagaashay Djibouti la dagaashay oo Yemen bay la dagaashay taariikh moogta marka fikrada siinaa yani konfurada oo si soconana sida Kenya iyo Uganda iyo maxaan ku Tanzania iyo Rwanda iyo marka waxa ku xasuustay fikrada journalismka hadda qof journalist oo mandaqada ka shaqeynaya tahay moogta mandaqadan ka fikra tahay ma aha inaad moogta dagaalada sokeeye Soomaalidu taqaanid siyaasadda Soomaalidu taqaanid ma marka masalada koowaad masalada haybta la xiriirdo dawladaha loo dhiso iyo si ay u dhashaan iyo qaabka dawladuhu dhashaan waa doodo furan oo political science ka jiro ka fikrad ahaan yani moogta inuu state ka wax la yiraahdo taariikhdiisa sida uu dhashay sida loo dhiso sida dib loogu dhiso oo doodo jiro okay marka naay mujtamac burbursan oo faqiira oo dagaal sokeeye ku jira dagaalada sokeeye waa mowduuc gooni loo daraaseeyo dagaalada sokeeye oo lagu takhasuso dagaaladu si guud ah mowduuc loo daraaseeyo jaamacadaha waaweyn waxay leeyihiin war studies wax la dhaho kuliyadaha dagaalka waxa soo dhan qofka daneynaya Soomaaliga waa inuu afkaar ka haysto moogta yani mujtamacaaga saad u qeexday saa u aragtid baa keeni karta waxaad akhriyaysid waxa la mid ah يعني maxaan waxa uu akhriyayna in xaaladina fahanna koow moogta afkaarta dagaalka lagu fasiro in anagu xaaladina fasiri karno moogta in xaaladina fasiri karno oo ka warrami karno oo fasiris haysto oo macna la ka bixin karno mawduucyada aynan barano oo daraasino ama akhrino ayay maxaan ku raahdaa keensanaysa sidoo kale waxa keensanaysa baahida u qabno in xal curino haddaan mawduuca ka fikirin xalka ma keeni kartid moogta inaad ka fikirtaan waxa keensanaya inaad cidla ka bilowdo maaha dadkii ka horeeyay waxan maxay ka dhaxeen si aad adiguna taada ugu dari kartid yani unique perspective ko wuxuu imaada horta waxa guud markaad yani waxa dadkan waxa hore loo yaqaan markaad taqaano ayaad wax cusub ku dari kartaa moogta waxa hore u jira markaad barato ayaad wax dheeriya keeni kartaa marka intaan goonida u tagin guud in loo tago waxa soo dhawaa afkaar guud oo ma aha moogta ajenda qasaba maaha laakiin qof waliyo waxyaabaha danaynaya iyo waxyaabaha oo isagu moogta baashinatu ka yahay oo arkayo inuu ka faa'iidi karo waxa ku jirnaa taariifkii aan isku taariifinayna Soomaalinahay tusaale ahaan geeska Afrika deganahay aad loogu celceliyaa juqraafiga meesha Soomaaliya ka taalo waa meel aad u muhiim ah adduunka oo dhan waa wax jira moogta faan ma laano waa ganacsi badan badda mara maxaan ku raa yani halkan ilaa iyo bariga dhaxan saaranahay halkan ilaa iyo Indian Ocean kan saaranahay mandaqad culeyskeeda la moogta حقنا أفريقيا بوقتها يا صارنا يعني conjunction fiican adigna marka wata keenaysa dagaalkii qawwa meel ugu kulay ka dhaca ku jirnay Mareykan iyo Soviyetka markii Syriya dadkii isku duleeriday dagaalkana qayb ka ah waa galnay moogta sababkii qayb wuxuu ka ahaa dagaaladii qawwaayay adduunka la isku eriyay okay hadda waxaan hore soo sheegnay Ruushia Chinese iyo Mareykan ay Syriya ganacsiga la isku haystaa domination dhaqaalaha la isku haystaa meelaha ugu badan loo tartamay geeska Afrika kamid ma aha in khayraad diyaalo kaliya tama yani khayraadku waa mas'alo gooniye laakiin waxa kale mid waa wadooyin moogta waa wadooyin la maro oo ganacsigu maro oo dhaqaaluhu maro oo la iska saameyn karo marka juqraafigeena siyaasadeed saan haybta uga soo hadalnay inuu xaaladeena uga soo hadalnay juqraafigeena siyaasadeedna wuxuu keensan karaa inuu qofku waxan daneynaya akhriska daneynaya inuu wax ka akhriyo dagaalada mataqaana super powers ka dhaxeeya iyo masaalixdooda iyo si isku yeeranayaan iyo say inoo saameyn karto waa qadiyad kale waxa soo hadal qaadnina shacab faqiiran nahay oo moogta aan dhaqaale haysan waana xaqiiq moogta dhaqaale ma haysano fuqaraan nahay moogta warta waana qirno xoolaan leenahay beerayarna waan leenahay abaartuna xoolaha barbay qaada roobku markuu daano beeraynta kale ayuu qaadaa marka si uga jawaabi karnaa su'aasha ummata u faqiiraya si dhaqaale u abuuri kartaa hanti u abuuri kartaa oo mustaqbal u abuuran kartaa wax diyaarsan ma aha moogta meel mitaalo waa inaan ka fikirno laakiin si aan uga fikirno waa inaan akhrino daraasaadka tanmiyada ama development studies wax la dhaho in akhrino horumarka see dhaqaale loo abuuraa waxyaabaha noocaas afkaara ka jirto laakiin si aad taada ugu dabaqdo horta jirto waa inaad taqaan
waxaan isleeyahay waxaad ka baxday yani afkaar waxaasoo dhan waa dulxaadis la xidhiidha markaad wax akhriyaysa si aad u xulanay waxaad akhriyaysid oo waxaan ku bilaabay inaga iyo qofka masalan Sacuudiga inaan isku ajenda noqon karin marka wax akhriyayno taas waxa ku xidhan tahay waa inaan ka gudubno baahida u qabno waxaas waxa weeye waa inaan ka gudubno akhriska moodada ah akhriska maxaa caana aan akhriyayno inaan ka gudubno akhrisku inuu xaaladeena la xiriiro waxa tahay adiga shakhsi iyo ummadaada iyo mujtamacaaga iyo duruuftaada waa in la xiriiro waa inuu waciga aad u leedahay waayahaaga inuu wax ku soo kordhiyo marka haddii aad adiga iyo qofka reer New York wax wada akhridaan macnaha labadiina mid baa lunsan moogta labadiina mid baa waqti iska luminaya labo fikradda kale halka ku jirta waxa weeye inuu يعني wax kasto suuqaya horta wax kasto buuga dunyada ma akhri kartid maktabada inta taalaaba boqolaal yani inta bijijkeeda dad isku geeyno oo malaayiin moogta wax kasta ma akhri kartid wax kasto la qorayna ma akhri kartid wax kasto la qori doona ma akhri kartid ko laba laakiin mowduuc kastaana ma aha inuu ku daneeyo qasab ma mowduuc kasto soo baxay inuu ku daneeyo qasab ma waa in mowduucyada dooran taqaani marka fikradda hore ma aha qasab inuu qofku raaco laakiin halka u socda waxa weeyaan isla faano mar walba waa inaad leedahay wax ku cabirto si aan waqtiguna kaaga lumin maxaan ku raaa jaanisiyaduna kaaga lumin waxaan inta badan wax ku tarayna anad waqti ku luminin inta waa ka soo gudubna marka laga yimaado marka waxaan yani marka akhriska marka laga fikiraayo waxa maxaa wax akhrina waqti su'aasha ku soo bilowna waxaan u horeysiyay masalada haybta iyo juqraafiga iyo danaha iyo inaad qeexda adigu soo wax akhrido waxa weeyaan waxa dib u dhigay masalada akhriska guud la xiriirada لأنه بلوغي waxaan ku bilownay inaga akhriskeenu waa nooc buuga la socda casharaaca iyo nooc farsamo yaqaan iyo nooc moodada la socda nooca moodada la socdaana inagu badan si aan uga gudubno marka waa in ajenda yeelano qodobka waan ka dhamaada u maleynaya hadda waxay imanaysaa akhris guud ahaan horta markaan ayna Soomaali ahayn arday ahayn inaan mutacalimiin ahayn maxaa wax akhrina yani haybti isqeexid marka ka baxna maxaa wax akhrina waxaan isleeyahay afkaar badan laga bixin karaa waana waxyaabo wax laga qoray kamid tahay ana waxa isla ku horta waxaan u akhrinaa in nolol ballaaran noolaano nolol ballaaran maxaa uga jeeda culimadeena hore waxay oran jireen hebel nolol waasic noola yani nolol dheer ma noolin 40 jir uu ku dhintaa laga yaabaa qofkaasi ama 50 jir ama 60 jir laakiin xal badan uu ka tagay yani ardiga noloshiisa ballaarna jalan taymiya kala taalo soo qaado boqolaal wuxuu qoray mowduuc wax ka qoray 40 milyan waa ku dhintay Shaafici oo kale wax badan ma dheereen marka fikradda ballarka ah inuu barakada cimriga yani mar walba ajish wayna suuga waa dhiman doonaa laakiin dhararka cimrigaaga ma kordhin kartid balciisa inaad kordhiso akhriska iyo tacliinta iyo aqoonta way ku saamaxaysaa labo waxay ku saamaxaysaa inaan tijaabooyin iyo jarribiyo kala helno tusaale ahaan adiga nolol baad nooshahay qaab baad u kortay jarrib baad soo martay laakiin ka qura uu khibrad inaad ka hesho ma dad kale iyo adduunyo kale iyo duruufo kale iyo meelo kale jarribiyada la maray waana wax ka faa'iidid waqti arfan jar ina jarribiyo kale aad sameeysan wax waan u akhrinaa waxa kale wax u akhrinaa inaan noolaano shakhsiyada ayna weligeed noolaaneen adigu shakhsiyad baad leedahay character baad tahay waqti noloshaada laakiin mesela tusaalaha sheekooyinka kale novelada kale markaad akhriyayso qof baad raacdaa waqti qof la falgashaa aad la maxaan ku raahdaa iska dhex aragtaa ku cajabiya jarribkiisa noolaataa moogta marka inaad nolol kale oo aanad noolaateen marnaba inaad mar kale aad chance u hesho inaad noolaatana waxa loo akhriyaa intaasi labada qaybood aan isku qaadnay waxa kaga gudbi doonaa su'aashii ahayd maxaan wax u akhrinaa waxa u gudbayaa sidee wax u akhrinaa oo laba qaybood u qaybin doono xulashada uga soo hadlay xagga mowduucda uga soo hadalnay حاجه موضوعيه يعني موضوعيه فكرتها ay tahay inaad danayso inaad ajenda u samaysato waa ka soo hadalnay laakiin xulashada la xiriirda maanta maxaa akhriyaa ay rabaa iyada inaan bal dhowr fikradood iska dhaxno qodobka koowaad waxa weeyaan waxaad kula talin lahaa buugta asalka waa la akhriyaa mowduuc kasta buugta asaaska waa la akhriyaa buug waxa jirta akademiya loogu talagalay waxbarasho ahaan tusaale chapter 1 chapter 2 mowduuca qeexitaankiisa qaybihiisa kuwaasi waa manhaj moogta buug badan oo kala sharaxaad iyo faahfaahin iyo jawaabis iyo naqdin iyo burin iyo adkeyn iyo waxba loo buugin buugta lagu dul wareegayo ee fikrado dhan ka dhashaan ya ee mowduucyada fura classics wax la akhriyaa
moogta classicska hadaad akhrido ha kugu adkaado waad ku celin mar labaad baad akhri mar saddexaad baad akhri laakiin fikradii asalka ahaa ayaad la tacaamulay hadhow markaa buwaagta faraha badan lee doodaha waxaasoo dhan ka dambeeyey waana kuu sahlanaani waanaad ka maarmi kartaa maadaama ana waxaan hore usoo nidhi wax walba ma akhri karna moogta marka waa fikrad ka mida fikradaha inaan faraca akhriin ee aad asalka akhridid fikrad labaad waxa weeyaan inaad buwaagta isku lidka akhrido tusaale ahaan buuggan mawduucu ka hadlaya buuggan isla mawduucu ka hadlaya laakiin waa isku cagsi macnaha waa dood waxa ku soo koobaya laba buugo is eryanaya minka tusaale caana Soomaaliyeed siinaya waxa xasuus qoray Allah naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo madaxweynaha Soomaaliya ka noqday xasuus qoray niman badan isku jawaabeen waxa ugu caansan rag isku jawaabeen nin ambassador Cawil la dhaho oo ay isku jiilna haayeen soo wadana shaqeeyeen labadooduna aad isku eriyadeen labadooda inaad hal mar isku akhrido waxa chance ku siinaysaa dooda gabigeedaba inaad laba maalmood saddex maalmood aad ka gudubtid waa noocaas yani falsafada saa u qaado fikirka saa u qaado mawduucyada kale oo saa u qaado buwaagta isku lidka ama isku jawaabaya inaad akhrido sidoo kale inaad mashruuc wax u akhrido tusaale ahaan hal qoraa wuxuu qoray oo kale inaad isku qaado akhrido Cabdiqaadir Warama Cabdulla Mansuur Ali Jimcaale Cawil wax saas oo kala qof inaad u akhrido marka qofkaasi waxa laga yaabaa toban mawduuc wax ka qoray laakiin wuxuu qoray oo dhan waad ka takhalustaa hal mar isku akhriday wala isku ka furfuraya moogtaa in qofkii maadaama isla qofkii yahay afkaartiisina isku dhowdhowdahay mawduucyada ka hadlayaan isku dhowdhowyin duruuftiisina isku dhowdhowdahay isku ka sahlayaan inaad barada akhrido ama cagsiga inaad halkaad qof wixiisa mashruucaan u akhri lahaydna mawduuc mashruucaan mesela mawduuca afkaaraha dhaqaalaha maxaa ugu muhiimsan kow laba saddex afar shan ugu muhiimsan hal marna isku akhrido marka mawduuc hal marna ka biyo cabto farsamooyinka aqriska ee xulashada la xiriidana intaas ayaan ka gudbaynaa kuwa la xiriira farsamada akhriska markaad buug akhriyaysid sida ay tahay inaad akhrido tusaale ahaan dadku waa kala duwan yihiin buwaagtuna maxaan ku dhahaa qaar adigoo xataa maskaxaan iska mashquul akhri kartaa qaarkood oo moogta iska mawduuc fudud qaarna waxa u baahan yihiin inaad u banbaxdo oo aad waqti siiso oo aanad mashquul kale aanad ka gelin waxyaabaha ku saacidaya markaad wax akhriyayso waxa kamid ah in marka horeba su'aalo ku gasho akhriska tusaale buug baad akhriyaysaa waa inaad su'aasha koowaad ku taaganay tahay qoraagan ama buugani fikradaha uu rabo inuu ka gado maxay buug ma marna moogta fikradaha ku jira marka halka macluumaadka eriyeen lahayd ka bilow horta centerka yani fikradda ugu asaasisan ama labada fikradood ugu asaasisan ama saddex fikradood ugu asaasisan la soo bixi kartid laano buugga dhan waxa laga yaabaa inuu ku wareegayo kow laba saddex afar shan waxa kalena ay yihiin يعني فاهفاهين iyo sharaxaad iyo cadayn iyo tusaale iyo moogta waxa kale oo dhan saad uga gudbi kartid horta waa asaaska maskaxdaada mar walba raadinayso qofkani muxuu rabaa inuu sheego fikradda uu rabo inuu ka gado maxay tahay taako ka bilow laga yaabaa inuu hordhac ka heshid waxa laga yaabaa inuu bartan ka heshid laakiin waa inay taas kugu taagnaato buuggan muxuu ka hadlayaa waa in laba leen saddex leen ku sheegi kartid tafaasiisha ku dambayso kow laano mooda xasuusin kartid buug waligaa moogta laakiin doodiisa asaaska waa inaad heli kartid يعني وليها هليا بنو حد أخردين دلودو وقت قارك أنت أخرده أيوة حلاقة يا دور سنة كدب دبو أخرده أو حنا وليها آخرينه كلا أقول نقطة لكن هذا فكرة أساسية كلا بحثه ومقت حاشية هنا مركز روح يفتده لو قمت تلقي المقت قضب كلا بعد فرسمعك وعاوي كلا حويا مركز أخرده وح على سليه كرتو وهذا اللي سيستوي يعني سؤالهان باراجراف بيج شابتر maxaa ku dhahaa fikrad wuxuu is haysta markaad akhridaba waa inaad u dib u qortid adoo eriyadaada isticmaalaya yani dadka inay hawl badan noqoto laga yaabaa inaad paragraph dib u qortid laakiin tusaale ahaan markaad tiraa page-kaasi muxuu kaga hadlay qoraagu waa inaad adigu cabiri kartid inaad fahantay baad adigu isku cadaynay moogta aanu dul marin marka inaad paragraph-ka dib u qabatid page-ka ama fikradda wuxuu masalan qodobkaas ka hadlay cadayntaas marka laba sadar saddex sadar waxaan ka badnayn oo aad u kooban oo aan ku cabiri kartid hadalka dhan ku celiso ma baahnid moogta haddaad fahantay waa inaad luqadaada ku cabiri kartid laba saddex sadar oo asaaska ah intaasoo isku geegeysay hadhow buugga waxa laga yaabaa inaad laba safxadood oo hal mar isha mariso aad ku soo koobi kartid oo chapter 1 kow laba saddex afar fikradood ka qortay oo min laba line
chapter ku xiga markaad dhamayso buug 200 buuga wax laga yaabaa 2 safxadood oo asaas inaad kala soo hadho 2 jeer hadaad iyada akhridana kugu filan process-kan aad ku qoraysaa ku caawinaya mogta fikradaha aad dib u qoray mogta ku caawinaya ugu dambeyn mawduuca aad akhriyayso iyo qofka aad buugiisa akhriyayso inaad wax ka dhageysato tusaalahan intaad akhriyayso podcast ka dhageyso lecture ka dhageyso waraysi ka dhageyso qof kale oo ka hadlay mawduuca dhageyso ka fududiyaa mogta adoo iska lugayna dhageysan kartaa adoo hawlo kale iska wata dhageysan kartaa laakiin mawduucu isku ka cugaya mogta isku ka beerbeerinaya waxaad fahmi yani isku ka furfuraya inaad qofkan buuga qoray ama mawduuca laftirkiisa aad wax ka dhageysato wax ka daawato taasina waxay ku sahlaysaa fahanka inay ku yarayso waxaan ku soo gabagabeynayaa inaad xer akhris yeelato akhriska kali lama wadi karo mudada aad wax akhridaan inaad yeelato laba shay ku sahlaysaa inaad isla socotaan yani waxa waa bilaadan ba tahay caajiska iyo xiisa dhaca iyo waa badan yahay moogta iyo mashquulka waa badan yahay laakiin aad xer leedahay naadi aad wax ku akhridaan aad leedahay moogtahay hadaad bishii hal buug wada akhridaan waad isla dhameyn kartaan laba faa'iido leedahay inaad joogteysaan oo qofka kale wada wuxuu waa balan moogtahay qof idinka dhaxaysa balan naftaada kala dhaxaysa ma balan dad kala dhaxaysa 4 5 6 7 qof kala dhaxaysa inaad leedahay sidoo kalena fahanka isku cidasho kartaan moogta adiga laga wax ka fahantay isaguna wax ka fahmay intaad break time kuma taqaan aad sheekaysanaysaa baad isku weydiin kartaan idinku ma taqaan rawaxaad aad isku weydiin kartaan yani waxaan 20 daqiiqo dhannayn baad isku celin kartaan fikradda dhan iyadoo hawl badan ba la gelin laakiin waa inaad xar leedahay aad wax wada akhridaan intaas aan horta wixii aan ugu talagalay in idin la wadaagaan ku soo gabagabeynaya wixii kale inaga dhaxaya aad u mahadsantiin waa ku faraxsanayn maanta idin la joogo